Fartuun oo daahfurtay awooddeeda dhabta ah. Dagaalku wuxuu gaaray heerkiisii ugu sarreeyey, xaalad cabsi leh oo fowdo iyo burbur ah oo halis gelinaysa inay wax walba baabi'iso. Iyadoo ay duufaantii dagaalku socotay, iyadoo rajadu bilaabatay inay libdho, Fartuun waxay si adag uga soo horjeedsatay mugdiga soo galay. Waxay indhaheeda u jeedisay Cabdulaahi, iyadoo indhaheedu ay ka buuxaan go'aan aan kala go lahayn iyo jacaylka iftiimaya xidig kasta oo ku jira koonka. Daqiiqadaas muhiimka ah, iyadoo qadarka adduunyadu uu isku dheelitiran yahay, ayay hadashay, codkeeduna wuxuu ahaa iftiin ku jira meelstroomka. Cabdulaahi ayay ku bilowday, iyadoo erayadeeda ku tilmaamay nidar quduus ah, waan ku jeclahay. Dhammaantiin waan idin siinayaa dhammaan tamartayda. Waxaa ka soo baxay iftiin naxdin leh oo ah supernova oo awood saafi ah oo aan la xakamayn karin. Tamarta Fartuun ayaa dibadda u kacday, iyadoo dib u hawaynaysa jirkeeda. Waxay ka gudubtay qaabkeeda dhimashada, iyadoo noqotay qof irka ka muuqda oo dhalaalaya, qof dhalaalaya oo u eg xidigo leh baalal qurux badan oo laga sameeyey dharka tamarta cirka. Isbeddelkeedu wuxuu ahaa mid dhammaystiran. Hadda waxay ahayd qaabka samuurta, ilaahada iftiinka iyo awoodda.